أحمد حرسي الدعالي xogayaha guud ee xisbiga mucaaridka ah ee UCID oo warbaahinta kula hadlayay xarunta xisbiga ee magaalada Burco ayaa soo dhaweeyay diiwaangelinta ka socota gobolada galbeedka Soomaaliland wuxuuna sheegay xogayuhu in diiwaangelinta codbixiyayaashu muhiim u tahay xanaanka doorashooyinka Soomaaliland halka uu ugu baaqay xogaye Axmed Xirsi bulshada gobolka Togdheer inay u diyaar garoobaan diiwaangelinta lagu wado in 27 bishan laga bilaabo gobolka Togdheer iyo deegaamada hoos yimaada diiwaangelintii oo inoo bilaabantay qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland dhammaan meelay joogaba aynu diiwaangelinaynay oo ah runtii diiwaangelintii labaad oo tii hore aynu diiwaangelinay aynu ku galay doorashadii 17kii tanna insha Allah taala aynu ku gali doono doorashooyinka dambe ee soo socda haday tahay baarlamaanka iyo golaha deegaanka inagu soo aadanba aynu diiwaangelin doono dhammaan reer Soomaaliland wixii qaan gaaray aad iyo aad runtii gobolka Awdal iyo degmooyinka gobolka Maroodijeex ay ka bilaabantay 29kii November oo maantii ugu dambeysay 4 casho ay ka socotay waxa laga soo sheegayaa nabad qab inay si wanaagsan ku dhamaatay in aad iyo aad loo soo baxay runtii aad iyo aad baan ugu hambalyeynaya gobolka iyo degmooyinka runtii ay ka bilaabantayba jawiga wanaagsan mustaqbalka wanaagsan ifaya ah ay ku bilaabantay diiwaangelintu gobolada kalena ay kaga dayan doonaan aad iyo aad baan u hambalyeynaya takre dhammaan reer Soomaaliland gobolada dhiman waxaan leeyahay oo ay ugu horeyso gobolkan Togdheer waxaan leeyahay doorashada si fiican oo mug leh oo miisaan leh looga qayb qaato loogu soo baxo degmo iyo tuulo iyo magaranaysa miyi meel kasta oo dadkeenu joogo iyo magaalo weynba waxaan u baahanahay in registrationka ama diiwaangelinta aynu ka qayb qaadano waan ogahay gobolka Togdheer cabatin baa ka yimi in dadkii ka guuray runtii anagoo ka xun hadana waxaan leenahay in badan baanu soo riixaynay inay doorashooyin inoo dhacaan inaynu gaadhno diiwaangelin inaynu dabadna gaadhno votingkii ama doorashadii golaha baarlamaanka iyo deegaanka waxaan leenahay anaga oo runtii aan ignore garaynayn gobolada ama laga guuray ama laga hayaamay ama meelaha ay dhibaatooyin ka jiraan haddana waxaan leenahay war aynu maadaama guddiga doorashooyinka iyo ciddii hogaaminaysayba ay schedule-kii aanay weli waxba ka bedelin waqtiga ay timaado runtii aad iyo aad oo 27 December ku beegan insha Allah taala waqtigaas waqti rooban oo Ilaahayna naxariista inoo shubaab noqon doonaa gobolka Togdheer waxaan leeyahay ha laga qayb qaato ha loo soo baxo ha loona diyaar garoobo inta ka horeysa doorashadaas maxaan ku idhaahdaa diiwaangelinta inagu soo socoto xogayaha guud ee xisbiga mucaaridka ah ee UCID oo hadalkiisa sii wata ayaa fariin u diray gudoomiyaha hay'adda barakacayaasha Soomaaliland ninka la yiraahdo xinif oo runtii ka calacalaya maalin dhaweyto waxaan leeyahay gobolkan Togdheer waa gobol runtii ballaaran oo Soomaaliland runtii miisaan weyn kaga fadhiya waxaan leeyahay xinif gobolkan raggii ugu jiray halka aad ugu jirto maanta madaxweynaha Soomaaliland hogaaminaya raggii ugu jiray gobolkan markay tan oo kale timaado wax badan bay ka qaban jireen wayna ka muuqan jireen xinif oo bariyahanba ku sitay xisbigii kulmiye seled oo ugu siday madaxweynaha Muuse Biixi waxaan leeyahay waxaan arkay hadalkiisa waxa ku jirtay waxaan filayaa cancilayay Dr. Gaboose oo bariyahanba kabihiisa gashana waxaan leeyahay Dr. Gaboose cancilaadiisu ma aha runtii wax isaga anigu day u doodi maayo Dr. Gaboose laakiin adiga waxba faa'iido kugu ma jirtay shaqa ku taala mansibaad u joogtaa madaxweynaha ugu jirta iyo dawladda maanta si kastaba maxaan ku raada ku helo waxa lagaaga baahan yahay positionkaaga inaad qaadato hadalkiisa waxa ka muuqatay calaacal xisbigii kulmiye oo aad moodo maanta qaybo badan oo Soomaaliland kamid ama gobollo badan oo Soomaaliland kamid in salligiisi laga soo laabay ayaad moodaysaa inuu Burco ku calaacalayo oo maartay wuxuu sheegay inaan marnaba lagaga adkaanin degmada Caynaba oo hadal noocaas waxaan leeyahay taariikhda intii horena waa lagu garanaya waa lagu yaqaanaa inta dambe soo socotana waa goobjoog baa loo noqon doonaa wixii nooliye waxa weeye ma garanaysaa hoos u dhaca kulmiye inaad degmana laga adkaadiyo mid bana laga aan ku adkaan jiray waxa ka sheekayntoodu macna badan ma sameynayso waa fahmi kaysa xirsi bulsha TV Burco.